dhegaysta ama daawade ku soo dhawow qaybtii afraad sheekadii la magac baxday qaladkii murugada badnaa. sheekadan waa qiso dhaba u dhacday waxaa qaybtii saddexaad ay noo joogta Xamse iyo sidoo kale Shamso oo guryahooda wada jooga. Xamse ayaa subaxii wacay lambarka Shamso waxaana uu isku sheegay in isaga uu yahay isagoo leh waan ku salaamay Shamso sidee tahay. Shamse ayaa ku jawaabtay waa fiicanahay Xamse, waa markii u horeysay codkaada si wanaagsan u maqlaayo inkastoo aan weli si fiican isku wareysan. intaa markay tiri Shamso waxaa u jawaabay Xamse oo Jaanis uu ku hadlayay raadinayay waxaana uu ku yiri Shamso waxaa tahay gabar wanaagsan, wax badan waan ku arkay laakiinse uma aan yeelan nasiib inaan kula hadlo. waxaan dareemayaa inaad tahay gabar sharaf badan misena waqtigu way baray. Shamso oo markaan ku hadalka taleefanka inay ku sii dheeraato aan u diyaarsanayn ayaa tiri Xamse waa inoo mar kale, waxaan doonayaa inaan qabto hawsha guriga oo qabya iga ah. Xamse oo farxad ay wejigiisa ay ka muuqato ayaa isdhinac dhigay moobilkiisa waxaana durbo uu dareemay in cagta uu saaray wadadii guushiisa. rabitaankiisa waa uu sii kordhay waxaana hadda uu dareemayaa xaalad jaceyl. qof ahaan aad bay u soo jiidatay Shamso, laakiin Xamse waxa kaliya ee uu ka walwalay waxay tahay Shamso ma noqon doontaa qof ku dareenta. bilowga jaceylka waa mid dhib badan, wadooyinka guusha aad ku gaari kartana waa adigoo tijaabo sameeya. Xamsena markaan waxa uu ku jiraa marxaladii tijaabada. nasiib wanaagiisa waxa uu helay fursad uu kula xiriiro Shamso oo ah gabar ay aad ugu wada tartamaan wiilasha xaafadda oo idil. Xamse u xiise qabay wicida Shamso ayaa wacay taleefankeeda waxaana uu la sheekaystay waqti badan. kaliya jawiga xaafadda ayay ka wada hadleen oo ma jirin markaan xaaladdu soo bandhigay Xamse iyo sidoo kale dareen jaceyl uu u muujinayo Shamso. maalmo kadib Xamse ayaa bilaabay dhageysiga heesaha jaceylka. markaan waxa uu ku sii siqayaa badweyn. lambarka Shamso waxa uu ku seefgareystay My Future. galabku waa khamiis sida caadada u ahayd. Shamsana waxay u soo adeeg doonatay dukaanka. Xamse isagoo aan shaah cabidii sidoo kale sheeko asxaab midna aan ujeedkiisa uusan ahayn isla markaana uu xambaarsan yahay fariin intaas ka weyn ayaa waxa uu fariistay darjin yar oo ku yaala albaabka dukaanka. xilliga uu dukaanka hor fariisanayay waxaa gudaha ku jirta Shamso oo ay isdhinac dhaafeen markii hore. markii ay Shamso soo adeeg dhamaysatay waa ay soo baxday. Xamse oo indhaha qac ku siiyey ayaa hal mar la soo booday allah Shamso sidee tahay ina keenan hore kuu sii dhaweeyay abaayo. Shamso oo aan u baran in la dhaweeyay ay isku sii lug darsadeen Xamse waxaana inta la wada socday qofba qofka kale uu weydiinayay su'aal. Xamse ayaa weydiiyay Shamso su'aashan abaayo wax xiriira hore muusa sameysay. maya weligay xiriir maan soo samayn. Xamse oo durbo fiirinayay in boos uu u bannaan yahay ayaa mar kale su'aal weydiiyay Shamso run ahaantii abaayo aniga aad ayaad ii soo jiidatay. waxaa tahay gabar dhan kasta ka dhisan haddii ay tahay xag muuqaal iyo xag qofeedintaba. Shamso ayaa u mahad celisay Xamso. in cabaara oo u muuqdo guriga Shamso ayaa waxa uu ku yiri Xamso aan halkan wax yar istaagno si aan isku sii wareysano. Shamso oo aan isaadkeen ayaa tiri bal waayahay. wareysi iyo sidoo kale sheeko dheer kadib iyadoo la wada qanacsan yahay ayaa qof waliba waxa uu u jihaystay xagga iyo gurigiisa. Xamse ayaa markaan qorsheynayay inuu ka faa'iideysto fursadda hortaalo. waxa uu doonayana waa xiriir balse awood uma lahan isaga in uu dareen jaceyl Shamso horteeda ugu muujiyo. markaan waxa uu degayaa qorsho uu isleeyahay waa uu ku shaqayn karaa. Shamso waa quruxda dunida, haddii aan gambasho ku sii jiro waxaa laga yaabaa in fursaddan ay seegto. qof ahaan hadda waa ruuxi fahansan. Shamso hadda ma ahan qof ii muujinaysa xumaan. waxaan rabaa inaan u bandhigto xiriir jaceyl laakiinse ma awoodo inaan horteeda aan istaago si aan ugu sheegto jaceylkaan u hayo balse fariin ayaan u qorayaa. daawada ma dhegaysta inta ah inoo joogto qaybtii afraad sheekadii la magac baxday qaladkii murugada badnaa. inta qaybta xigta aan ku wada kulmi doono nabadgelyo.